weligaa ha ka fakirin qof ku dhaawacay. aamin qofkii hal mar ku dhaawacay kun jeerna wuu ku dhaawacaa. caqligaaga weynee oo iska ilow inuu si qalad ah ku dhaawacay. qofkan hadduu si dhib ah kuu jeclaan lahay wax kastoo ka samaysid kuma uusan dhaawici lahayn. wax yar xataa wuu ka fakiri lahaa dareenkaaga, wuu ilaalin lahaa. aamin haddaa adiga ka badbadin lahayn oo aadan ahmiyad zaa'id ah siin lahayn kuma uusan dhaawici lahayn. dareenkaaga wuu ilaalin lahaa. intuusan ku dhaawicin ka hor kun jeer ayuu ka fakiri lahaa si uusan kuu weegin. laakiin adigaa qaladka iskale waayo adigaa qiimo isku yeeli waaye. qofkaas dartiisne adigaa sharaftaada dacaska u mariyay. adiga qof dabaal ah ayaa tahay waayo karaamadaada ayaad hoos u dhigtay qof aan qiimahaaga ogeyn dartiis. qalbigaaga ayaana dhegaysatay. jacayl waa wax jira, waana qayb ka mid ah nolosha. keliyadaadana isaga ayaa ku rumaynaya. waa dareemi kartaa qofka si dhaba ku jecel, marka maxaad anigii fahmi lahayd?